maanta ogaansho ayaan haystaa cumar inshaar dadka taageeraan hay laakiin waxaan arkay postuu soo dhigay facebooka uu yidhi xaqiiqo laga qariyay soomaalidu qabiil ma taqaano ayuu yidhi soomaalidu waa dadka ugu yaray qabiil isku laaya marka xaqiiqo laga qariyay xaqiiqo la qariyay maaha wuxuu waxaan xaqiiq ahayn baad keenaysaa marka cumar inshaar oo walaalo ma waxaan dafirnaa taariikhda soomaali ee dagaal gebigoodba ah iyaga dhexdooda ka dhacday qabiil laisku laayay hebel laisku laayay iska dhaaf hadda yacni wax weyn laisku laayaane qabaan bay isku laayaan qabaan ma garanaysaa waxa weeyaan biyaha weelka la darsado ay isku laayeen iska daa waxaase xaydh bay isku laayeen xaydh yar haddaba subaga yar xaydha laga aho ayay isku laayeen oo day gabayo iskaga tiriyeen ma isku yacni gabayo iskaga tiriyeen laakiin qabaanka dad ba isku laayay yacni soomaalidu qabiil way isku laaysay weligeeda way isku layin jirtay wuxuu isbarbar dhigayaa soomaalida iyo hoodsiga iyo tuudsiga reer Rwanda wax noocaasa markay isku laayeen meesha soomaalida dadka lisma barbar dhigi karo waayo waxaan isku barbar dhigay ma ku sheegayaan waxa weeyaan soomaalidu waxay leeyihiin xeer bay leeyihiin xeer ba xudha soomaalidu waa dad weligood xeer ku dhaqmay haayeen imaka maaragtay baabulaahi markaa ninkan la yidhaahaa tiktokta halkaas deed musabixi kacaaya waxa weeyaan garxajis ha ahaadee markuu muuse biixi ciidanku wadida oo isaaq lagu sheegayo uu dhulbahantaha inta soo qabteen ka duubeen muxuu yidhi naga tag naga taga gunyay guntu dhashay muuse ba idinkaa dhiiga ku yareeyey laangaab miidhan baa dagaalamaya oo ducufa oon weligood geelooda soo dhicin oon weligood geelooda qabsan gunyay guntu dhashay warse aad nin maxbuusood u hayso aad qori ugu qabataad kamaradooga soo sidoo kale ninkan xasan daahir weersam cidi garanaysa cidi aan garanayna waxa weeyaan muuse biixi bay jufada hoose xataa isku yihiin isaguna waxa sheegaya yacni waayo qofka Soomaaliga asalka taariikhda Soomaaliga xeerka garanaya hadda waxaan de xeerkan taariikh ma baahna in qofku garto ima kala soo lagu dhaqmaaba xeerkan de laakiin dadka reer magaalada ku dhashay dhalinyartu ma taqaano marka waxa maadaama dhalinyar ahayd dagaalkana de dhalinyar isku adeegsanayay sababtoo ah iska soo duuduubay wax yar oo fiidiyoga labada dhinac saa ogeed dadkii waaweynaa way yaabeen dadka qaar baa lahaa la waa fulay laakiin fulay maaha xeer bay yeelay waxa la yiraahdaa ilmiriqsiga Soomaalidu ma disho martida ma disho maganta ma disho hadda magan aabaha kii dilay hadduu maanta ku imaado quraha iyo magan geli wakay wadoonse magan ma dilaysin maganta waayo uu magan ku noqdo waxa weeyaan birmageeda waxa la yiraahdaa jira magan iyo marti saddexdaaba Soomaalidu ma dili jiray birmageedadu waa caruurta iyo dumarka magantuna qofka ma soo magansaday martina qof marti waa qof ma ku martiyay yiri safar baan ka falmay markaas wareysatin haddaad ogaatid inuu mid adeerka beri dilow yahay wadeenisa way marti ku yahay Soomaalidu marka xeerar bay lahaayeen soo kale Soomaalidu heshiis ka ay yaqaaneen dagaalkan oo yaqaaneen heshiiskan oo yaqaaneen marka Afrikaan kale cawaanka yugu isku maadiyay iyo muxuu haye hadday tahay Afrika ma wada ma China ay ma wada arkaysaa dadka muslimiinta waxay ku hayaan waad arkaysaa boorma dadka muslimiinta waxay ku hayaan yani ciyaalkii yaraga waxay ku istaagayaan yani Soomaalidu waxaas wax geeyo maaha wax geeyo maaha dagaal noocaas in jiilkani marka ayaa ma de xeerarka Soomaalidu lahaayeen ay yaqaaniin aduu waxaan magac Cumar Jaal Malaw wuxuu ku dhashay carabaha ku dhashay Soomaaliya marka sababta awgeed baa de malaas هذا وضع كودا لما هاي كل شيء كوين كي قبيلة ذا قبيلة ذا يوات كلا بيحل هاي الصوماليين تاني سلين جرين سو كلام مهما هي ذا مهما هي الصومالية ما عرفت مهما هي الصومالية الواحد يدقين هشيسك يعني الكو يعرف بس كله ويسقطان انتو من جيت كبو يعني
inuu lingeed ka boodo tale ka booda meel mahmaahyo badan oo heshiiska dhiirigelinta Soomaalidu leedahay hadda eegtid qoomiyadaha kale ma laha waxaas badankooda waana way adduunku weynoo dhan ma marin weynoo dhan luqadooda ma yaqaano laakiin dadka yaqaano si Soomaalidu dhiirigeliso heshiiska iyo dhiirigeliso marka hadda taariikh la sheegayo taariikh marka laga hadlayo in loo fiirsado weeyaan taariikh marka doonaysid inaad baadhi Soomaali taariikhda laga qabsado laakiin hadii aad ka baari kartaa mahmaahayada ka baaraysa suugaanta tixliya tiraabta ka baaraysa hal qabsiga ayaad ka baaraysa marka intaasba dagaalo ku jira heshiisyo ku jira soo ka Soomaali xeerar bay lahayd qabiilka si xeer buu yeelaa ima kala xataa aan wax fiicanahay nin markuu nin kale soo dilo maxkamadda soo dawladda kuma jirto Soomaaliland maxkamadda markay xukuumadda maxkamaddu waxay ku dawladday aqladii ama dadkan annaka ninkan qabiilkan dilay iyo ka dilay xeer baa laga dhixiyay xeer baa maxay yani maktab kuna qaanima si kala oo xeerkooda ka dhixiyay weeyaan waxa laga yaabaa inay labadoodan qabiil makba aan iska qaadan oo mid ka dilo arba kale ma ka qaadan waxa laga yaabaa labadoodan qabiil inay coliyiin markuu mid iska dilo maktab kun geela loo kala qaato 200 geela loo kala qaato 500 geela loo kala qaato يعني حير وحبيان حير بنا لحية يا بقرانسا أنا كي قبيلكم بس قبيلهم قال بيهوش يجرين وحيرات قاربي هاي حيرات عامل ويجرين بس حيرات كده قال قاسين أنا الملفسي قال لدري البرمجيدة لدري محوم هاي مارتي ده أنا لدري ما كنت أنا لدري بس سويت أوجد بسومالي الآن أعرف لبنان أو قراطة أي حيرات كسومالي كوريمي أو سومالي لما كان لا يعطي وها سيد محمد عبد الحسن يسياد واحد سيدكم ما كنت أنا ودي للشري مرتي أنا ودي للشري وبد كانوا ودي للشري دمر كانوا ودي للشري وعاجة شري يعني حركة أو قصة وجه ساوي قبيلة الصومال واحد تشيل سابق نقطة يعني مولود جسته واحد كاستين أهوية أي كل نقطة وجو سمعنا يسيد صوت أول قبيلة بدو الصومال كو قبيلة سو هذا شيء كو كفر عيني هاي كوي ريالكو ريالكو كسر جيدا كو دمر كقبي وحوا بدل كسر جيدا وايد برجع قبيلة بجرتوني كسوس كتير لها إن كيسو أمينة في المدار كينينو مثل هاي دين تجيلنا يعني واحد كده جد واحد حيران كيسو ما له تالي أيوبنا حيران كيسو ما له مقدس بيوتا حيركا قبيلة كنا دكتور مقدس بيوتا ولي بآخر خاصو ومقدس هذا بيوهاي آخر تاني سياد بره يسيد ويبيجين ويكعيارين هم يدلين شري وده لبدو أنا على الماء مكان واحد سببين لكن قف كتاريخ ضبور راعي تاريخ ضباري وقرنايا إن لبدو لا قف حيران كبيرين لبدو لا قف وحين لو دي ده لو سهر جيد أي هاي دون حيران صومالي كسهر جيستين حيران كصومالي ده ويكسهر جيستين مركا إن شاء الله تاريخ برنامج هذا كلام ما شاء الله ديرجلين ده وشو نوصل ضب لكن تاريخ مركز هاي هالدقيق حماسة يعني بقادنا أو واحد قرأت ما قرأت أنا قيمة سيدا أنا صورة ما تنحس صومالي دي أساس كلي ويدي فيها إسكولين الدنيا كلام قصلنا عرور تلديلو مستوى دمر كمال حلقة أصلا حسني ويا هذا مستهبة أيا بقول هاي أيا سببي Soomaaliya iyo dagaal aqoon Soomaaliya waliba dagaal taqaan ومستو وحبا أود ملها Soomaaliya وحيرك lahaayeen nabi maxamed haduu soo dagaalkii lahayn diida way qaadateen beelada Soomaalida xeerarka u yaala si xeerarka u qiimeyn jiray muqaddas agtooda uga hay xeerarkaas waliba ma ku jiilalkii aan qabyaaladu la baray oo xeerarkii Soomaalida u yaala aan la barin bad arkaysan oo qaar social media ciyalka caayiya waxa laga yaabo ما يقال قف عاية جس أبيه وحنقصين هي ربع عاية ومقصص وحوية إسكاست وحوية مركز لا يابا dadkii raha ilmiqsiga lama laayo weeceeb waxaan waflay waxay xeerarkii baan waxa ka aqoonin taariikhdiina ma baaraya